السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أمد الصوماليات ملك استادونة الدافية ذا كجوكتان ومسكين كلاها عبد الخالق معلن دوحيرة نوعاو سوق اللايفكا هبينكي دور الشدة يوغندا يكد عايسي وحرمين على اللايف سوقلنا لكن والحري خدكي هبين كاسبو والحري والجوجي وقعد الدارنية وحرباين عن كهذا تاس دور الشدة يوغندا دبانو دقي دونا هدول هاي نمر كلام سفع عن وقصوا هالليا waxaan rabaa inaan ka hadlo aragtidayda diblomaasiyadeed ee ku aadan madaxweynaha xalay xilka loo dhaariyay ee Mareykanka Joe Biden ama Joseph Biden hadda sidaad u taqaanid ninkaas xalay waa qodbadeeyay Biden ah markii loo magacaabay xilka Mareykanka qodbad dheer buu jeediyay anigu aan daawanayay live aan daawanayay inkastoo Al Jazeera Carabiga qaybta Carabiga aan ka daawanayay oo barnaamijyadan codadka turjuma عربي هانت أنا آخر دقي سنة داوني ليف داوني لازمنا خاصنا يكسو قرمنا يسي واحد وكوه الله يعرف عربية إنجليز كوه الله يعرف عربي ترجمان دبقل عن ما أنت سمينا إنك صار النت كبارين لكن ضد بس فيسك على وحيوش شغل جون بايدن لو قضوه كم كوه الله إنه عربي كم دي هاي سيد دون طبعا هالنقطة واحد رأينا عرفتي ده الدبلوماسيات كأدن قطبات دي حري wixii ilaahay iga waafajiyo aan idin la wadaago haduu ilaahay idmo dadka raba inay live-ka ku soo biiraan oo ka dhiibtaan fikradooda oo raba inay live-ka ku soo biiraan waa soo qabanaya insha Allah ama iyagaba live-ka ay soo codsadaan qofka raba inuu live-kan ka soo mid noqdo oo halkan ka soo muuqdo oo isaguna fikradiisa Joseph Biden ku aadan inuu ka dhiibto uu soo codsan karaya live-ku soo codsan karaya ana accept baa leeyahay fikradiina waxa rabaa inaan ururiyo haduu ilaahay idmo intii ilaahay naga gaarsiiyo ninka xalay Biden ha waa la doortay waana la dhaariyay waana u hadlay qodbadiisii waxyaalo badan bay taabanaysay meelo badan bay taabanaysay wallow markii aanan ka qoran oo aan meel ku qorqoran wixii aan ka xasuusto waan rabaa intii ugu muhiimsanayd inaan aragtideeda diblomaasiyadeed aan ka dhiibto Joe Biden markii la doortay xalay qodbadiisii hadalladii Al Jazeera ay hoos ku soo qoraysay ku soo celcelinaysay anu CNN kama daawanayn Al Jazeera Carabigan ka daawanay saadin sheegay hadalladii lagu soo celcelinay wax kamid ah سأكون رئيسا للأمريكيين لكل الأمريكيين waxaan u noqon doonaa madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan hadalkaas yani muxuu noqon karaa uu leeyahay Joe Biden waxaan u noqonayaa madaxweyne dadka Mareykanka oo reer Mareykan oo dhan waa hadal iska diblomaasiyadaysan waxaan maqla jiray dadka lacagta leh dadka dabayaal baanu dabanaal Joseph Biden ama Joe Biden xalay markuu yiri waxaan u noqonayaa madaxweyne dadka Mareykanka ana aragtideeda diblomaasiyadeed waxa ila muuqataa inuu hadalkiisa ka waday yani dadka Mareykanka oo Amerikaanka already iyo inta waafaqsan oo taabacsan ba waxaan u ahay madaxweyne كوس وحين أجنى ترام أنتو حلكاي إنه حلكيس مدحوني ما أكو كأمريكا يو حيالي مركا حرير كالعلاقات كلا لكن نينكي بايدن حالي مركي لداري وحيري وحن مدحوينا وهاي لكل الأمريكيين ضد كأمريكا تاسوي معناه إنه نقول كله ضد كأمريكا يضد كتابع صن أو وافق صن أمريكا بين مدحوينا وهاي كاسوحة بايدن هذا الذي كومنتيه دي كله لقب بحي بدن كمان أنا آخرين هذا الذي سكاله جون بايدن يعني سامين تبدنا واحد كم إذا ما أنت ورر تنفيذ هداي وأنا أركي وحول قلا الربع إنه سمايا وسمايا وكعو وأنا أركي إنك سنة قاعد وسي آخرين لكن حياله سمايا وبحليش هذا الذي سقط بدس واحد كم إذا إنه شرايو بلانادي وقلاي ترام وكديده إن ضد مهاجرين أما ضد مسافرين إن أمريكا كسوق قلان حالي قدبديس uu ku jiray inuu xiriirkaas yani heshiiskaas uu ka baxayo una u ogolaanayo inuu Mareykanka dad badan ku soo biiraan xilligan la joogo Mareykanka Canada Ingiriiska Talyaaniga wadamada galbeedka oo dhan waxay u baahan yihiin dad badan bay u baahan yihiin sababta ugu baahan yihiin waxay tahay population koodi waa dhamaaday mujtamac badan baa ka dhumay oo ka baabay si ay mujtamaca ka baabay oo uga soo kabtaan waxay u baahan yihiin dad ay ka soo wataan Afrika Asia bari ama Asia bari aad bas u taqaanid bi u baahan yihiin inay dad ka soo wataan si u kaco mujtamacoodu at least u soo kabto oo meel fiican u soo gaaro
بايدن يعني حالي wuxuu aad uga hadlay cudurka corona oo xoogaa qodbadiisa ku sii dheeraaday uu yiri haddana maanta waxaan arkay haday caajilka Al Jazeera soo qorayeen يعني inuu yiri ma dayici doono fursad labaad oo aanu ku khaarijin karno cudurka corona virus waxyaalaha wax la yaabo kamid ah corona wuxuu ku jiraa cuduradan la dhaho viral disease ama cudurada virusku uu agentiga ka yahay sababtoo waxay ognahay cudurku inuu ka kooban yahay saddex qaybood ama disease triangle-ku inuu saddex qaybood ka kooban yahay qofka oo hostiya ama cidda cudurku ku dhacayo iyo maxaa la agenti sida corona oo kale maxaa la tiibishado kale cidii xanuunka ka wakiilka ahayd iyo environment-ga deegaanka uu joogo marka corona wuxuu ku jira cudurada viralka halka ay la gashay way fududahay in talaal wax lagaga qabto oo talaal wax lagaga qabto sida bacteria aysan u fududayn oo virusku uga fududahay in talaal wax loogaga qabto marka tara aday John Biden wuxuu soo qorayay ma dayacayno Janis labaad hadaan ku helno aan cudurka corona kaga takhalusayno ama fursad dambe ma dayacayno waxaan kala xasuustaa xalay Biden markii uu hadlay kadib gabar u hadlaysay dimuqraadiyadda oo Afrikaan ah aniga kale aragtidayda diblomaasiyadeed dad badan baa qodbadaynayay naagtii heesta qaranka akhrinaysa nashiidul wadani ama waxaan ay yiraahdaan national anthem ka akhrinaysi dad badan baa hadlay yani ka wada laakiin gabar Afrikaan jiday oo dhalinyarada da'deedu u yaray oo dimuqraadiyadda ka hadlaysay oo meesha ka qodbadaysay gabadhaas si fiican bay u hadashay si fiican bay u xarakeysatay aad bay ii soo jiidatay gabadhaas si u qodbadaynaysay يعني وحكاليسي ديمقراطية فائدة إلى هاي هذا الذي بايدن بان كجري هذا الذي بايدن واحد كميدا ويري الديمقراطية انتصرت الديمقراطية دي ويقوليستي أو الديمقراطية دي ويقوليستي يعني هذا الكاس محون نقول كرا وأكتي الديمقراطية أما الديمقراطية وحو يهاي وين أبنها هاي decentralization محلي هذا باور شيرين واسكا ديمقراطية waxay tahay waa ka dharagsantiin marka wixii dimuqraadiyadu waa ay guuleysatay buu yiri marka hadalkaas muxuu noqon karaa dimuqraadiyadu waa ay guuleysatay oo ka wada markii dambana wayaga gabadha soo diyaariyay gabadha dimuqraadiyada ka hadlayso yani wax ka hadashay dimuqraadiyadu inay keentay oo dimuqraadiyadu keentay in maxaa la yiraahdaa gumaysigii iyo Mareykanka isgumaysigii dadka madowga lagu hayay in laga baxo inay keentay in gabar wixii aad uga hambalyeynayay Harris gabadhan ku guuleysatay inay noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka waana madaxweyne ku xigeenka ugu horeeyo Mareykan oo qof dumar noqda saas gabadhaas ugu sii dheeraatay wixii tiri Mareykanka dimuqraadiyadii keentay in qof madow ah oo Mareykanka madaxweyne ka noqdo yani hadalkeedu wuxuu la deen leedahay markaas Barack Obama in gabar ay noqoto madaxweyne ku xigeen markii ugu horeysay dimuqraadiyadda keentay bay leedahay adigu si fiican bay dimuqraadiyadda ugu dooreysay yani afkaarteeda ay iyadu aaminsaneed shakhsi ahaanteeda si fiican bay u soo bandhigtay marka hadaladan uu leeyahay dimuqraadiyaddu waa ay guuleysatay wax lala yaaba ah dadku ama Soomaali waxaan ogaadayba in bini aadamku isku mid yihiin meel walba ay joogaan ama hamadoobaado ama ha cadaado ama jaalahaado ama buluug ahaado qof dadka bini aadamka ah inay isku mid yihiin baan ogaaday isku si u fakarayaan isku wax saameynayaan ma garatay waxaan markaas wax xasuustay xadiiskii nabiga kaleey salaatu salaam uu yiri kulliin wax ka timaadeen aadam wa aadam min turab aadana wuxuu ka yimid ciida bini aadamku wax isku mid u yihiin waxaan la yaabay maanta aad ugu qoslay Al Jazeera mar aan daawanay القراح ماشي عراق هيدا wax ka dhacay qarax dad baa ku dhintay 32 qof boqol kooy toban way ku dhaawacmatay sida Al Jazeera soo qorayso marka live-ka markii Al Jazeera live oo kale daawanaysa live oo kale ama YouTube ka daawanaysa commentiya live-ka dhinaca soo orday baa jira marka kuwa badan Carabi wax soo qorayeen qarax la 18 hatta Al Jazeera way soo qoray 18 bilood ka hor in qarax noocaas oo kale ugu dambeeyay magaalada Baghdad oo xaruna wadanka Ciraaq 18 bilood adigu waa sanadii 6 bilood inay ugu dambeysay marka kuwa commentiga wax ku soo qorayaan 32 qof bay dhimashadu maraysa 111 dhaawac maraya saacadaana laga joogaa intii xilka loo dhaariyay madaxweynaha dimuqraadiga ka socda Joe Biden kuwa commentiyada ku soo qoraya live-ka meesha orda aad baan ugu qoslay yani maxaa isku xiray doorashada ninka dimuqraadiga ka socda Joe Biden iyo qarax ka dhacay Ciraaq maxaa isku xiray relationship ka dhaxeeya dadku isku qoraan commentiga way xirabaan bay isku qoraan xaqiiqadana Ilaahay baa og
waad ogeydeen dad muslima baynu nahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkiisi markuu u dhintay qaasim wax madoobaaday dayaxa marka dadku waxay yiraahdeen oo dadku yiraahdeen maadaama wiilka rasuulku dhintay calayhi salaatu wasalaam saas buu dayaxu u madoobaaday nabiguna uu ka xumaaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri maaha inaad isku xirtaan qadarka rabbi wax dhacay in shay kale cilaaqo loogu yeelo waa qalad marka anu fikrad ahaanteeda commentiyadaas kale aad baan qalad ugu arkaa sababtoo tahay qaracuna uu dhici karaa ninkan magacaabistiisuna way dhici kartaa way isku beegman kartaa xitaa kitaabkan aan akhriyo qisasul anbiyaaga inkastoo dabcadiisu waxyaalo badan ka qaldan yihiin meeshan la dhaho daaru ibnul haysan baa lagu daabacay qaladaad baa ku jira kuwa la xadaata hase aatee qaladaad ku jira wax ka mid ah qoraalka oo kale in la isku dhex daro xurufta carabiga ogtii waxay leeyihiin space kelmaduhu space bay leeyihiin in laba kelmadood la isku qortay laakiin kitaabkan wuxuu qisasul anbiyaa la yiraahdaa ibnu kasiir baa iskale wuxuu ka hadlaa ambiyadii wuxuu qorayaa dhammaadkiisa markuu ka hadlayo nebi aadam uu dhammeeyo markuu nebi aadam dhintay calayhi salaatu wasalaam oo ajashu u timi in dayaxa iyo dayaxu ay magadoobaadeen dayaxu iyo xidiguhu ay madoobaayeen oo 7 beri ay madoobaayeen in xidiguhu ay yani gabeen iftiinkii waxyaalahaas uu qorayaa oo israa'iliyaat ah qisooyinkan israa'iliyaadka laga soo guuriyaa ibnu kasiir baa iskale oo soo wareejiyey sida kitaabkaas ku qoran marka almuhim waxay muhiimadu tahay way isku beegman karaan wax way isku beegman karaan inagu laakiin taasa macruufa isku beegmatay dhimashada qaasim waa abu qaasim ninkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa uu ku magaciisa abu qaasim uu ku qaatay markii uu dhintay in dayax madoobaaday dadkuna ay dhaheen maadaama wiilka rasuulku uu dhintay baatan marka baa isku beegmay nabiguna uu ka xanaaqay oo yiri dayax madoobaanshiisa iyo wiilka geeridiisu iskuma xirna marka John Biden oo saacada ka hor la doortay oo xilka loo dhaariyay iyo qarax Ciraaq ka dhacay anigu iskuma xiri karo ilaahay baan xaqiiqada og iyo qadartay shay walba siduu yahay marka John Biden aan dib ugu laabanay muxuu yahay qorshayaasha horyaal Joe Biden oo rabo inuu ku dhaqaaqo qorshayaasha oo horyaal oo rabo inuu ku dhaqaaqo wixii Mareykanku danta ugu jidho waxay tahay sidoo uga takhalusi lahaa cudurka coronavirus sidoo u soo saari lahaa talaaladii dadka talaalka la soo saaray u sii ansixin lahaa boqol loo gaarsiin lahaa dadka looga dhaadhicin lahaa in la talaalo wixii ognahay Hindiya in talaal uu ka socdo coronaha ah haddana dhanka kale Hindiya laftirkeeda in coronihii laga soo horjeedo baynu la soconaa marka muhiimadu waxay tahay oo muhiimadu tahay sidee buu John Biden dadka reer Mareykan uga dhaadhicin karaa in dadku ay talaalka qaataan dad badan talaalka way u dareerayaan kuwa badan hadda way qaateen sidoo dadka Mareykanka dhan loo talaali lahaa corona loola talaali lahaa waa waxyaalaha horyaal Joe Biden horyaal oo miiska u saaran sidoo cudurka corona ugala taxaali lahaa hadda mar dhaweyd wararka waxaan ku arkayay inuu yiri maxaa la yiraahdaa Biden waxaan ku furay markii hadalkiisa loo fiiriyo xitaa ayagu way ku soo qoreen according to him markii isaga hadalkiisa loo fiiriyo wuxuu soo qoray John Biden twitterkiisa inuu ku soo qoray waan u maleynaya inuu twitterkiisa dib uma aan raacin inuu soo qoray iskuuladii iyo maxaa la yiraahdaa shirkadihii baanu furaynaa bil amni wa salaam si nabadgelyo amaanu ku furaynaa marka isaga markii loo fiiriyo way taas sababtoo shirkado ganacsiyo badan waxyaalo badan baa xiran oo corona la xiriira kaasi waa Joe Biden waxyaalaha isaga u yaal waxyaalaha la rabo Mareykanka yani cilaaqaad kale leeyahayna inuu xoojiyo siyaasadda arrimaha dibadda cid uu soo magacaabayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka cid uu soo magacaabayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka uu Trump intuu hayay uu ku galgashay sidoo xal uga keeni lahaa Trump iyo siyaasadda uu ku galgashay uu siyaasadda arrimaha dibadda uu ku galgashay sidoo uga keeni lahaa war sidoo kale waxyaalaha horyaal cilaaqaadka miiska u saaran wax kamid ah arinta nuclearka Iran waxaan ognahay ninkii ugu sareeyay nuclearka Iran nuclear atomic bomb kan la tuuro ugu sareeyay in lagu dilay magaalada Ciraaq andahe magaalada madaxda wadanka Iran in lagu dilay baynu ognahay magaalada Tehran in lagu dilay baynu ognahay marka arrimahaas oo dhan baa miiska u saaran arrimahaas oo dhan baa miiska waxay u saaran yihiin ninka dhahan John Biden miiska u saaran Joe Biden laftirkiisu isagu waa siyaasi rugcadaaya وسياسي رقعداية 29 jir buu ku noqday xildhibaan intaas uu ku soo jiray siyaasadda madaxweyne xitaa isku sharaxay in badan madaxweyne ku xogeen buu soo ahaa marka siyaasi caalami weyn in siyaasaddu dhibayso ma ahan
oo siyaasaddu ku istaagayso xisbiga dimuqraadiga waa ka soo jeeda waa wuxuu u soo qoray Trump hadalladii Trump wax kamid aha wuxuu yiri oo hadalladii Trump kamid aha wadanka waxa ugu taafsan cida ugu adag ee adduunka heshiis lala galo ama lala hadlo ama ugu adagi ama ugu dhibta badani ugu taafsani waxa weeye yiri ma China ma North Korea ma Russia ama Russia miya ma ahan buu yiri waa xisbiga dimuqraadiga ee wadanka Mareykanka jira كوسو يسقو حسب الجمهوري كسو جيدا هذا الكيس صودو دون يسقو هؤلاء جودا يعني يسقو ميمد سوحي تاي ولا يهاي ترام يعني حسب الديمقراطية أقول بدن وكتب بدن نوت كوريا كوريا وقوي يا تشاينا يا راش كبا وحكتب بدن وكتب بدن وحكتب بدن حسب الديمقراطية ودن كأمريكان كجرا marka sidaas buu Trump hadalka soo qoray maalin dhaweyd soo qoray marka John Biden oo maxaa miiska ku yaal raba inaa ka qabto arrimo badan ba miiska u saaran waxaan rabaa khiyaar badan ba laga yaabaa inay rabto inay live ka soo mid noqoto oo miiska raba inay oo yaani miiskan ka soo muuqato ama shaashadan ka soo muuqato oo ka qayb qaadato doodan ka qayb qaadato rabta marka qofkii raba uu soo codsan karaa live-ka oo aragtidiisa ku aadan inuu ka hadlo madaxweynaha Mareykanka doorashadiisa andee magacaabista ama dhaarinta Joe Biden loo dhaariyay xilka Mareykanka hadduu jiro qof raba inuu ka soo qayb qaato oo meesha ka soo live-ka ka soo mid noqdo waad soo codsan kartaa anigana waan ku aqbalaya hadduu ilaahay idmo qofkii raba inuu ka soo muuqdo halkan ama aragtidiisa ka dhiibto oo aragtidiisa ka dhibta arinta ku saabsan magacaabista Joe Biden loo magacaabay madaxweynaha Mareykanka loo dhaariyay qofkii raba inuu soo codsado uu soo codsan karaa waana aqbalaya insha Allah bil makrim in muddo ama isticmaalin live-ka wad ogtiin marka akhyaar badan baa rabta inay soo codsato ad baan dhahaya ama maxaa la yiraahdaa ad baan soo dhahaya qofkii aragtidiisa uu ka soo gudbisan karaa walaw aysan jirin dad aan si khaas ah ula xiriiray oo ka codsaday inay live-ka soo galaan ama barnaamijkan ay galaan mid noqdaan iyagoo meel fog kala jira marka waxaan ku codsanayaa qofkii raba inuu soo codsado qofkii aan rabina inuu habeen dambe ka soo qayb galo ama si fiican isugu soo diyaariyo xilliyada dambe inuu comment igu soo qoro xilligaas aan diyaar u ahay oo ka mid noqonaya hadduu lahaa خير بأني رجينا دمان ومد الصومالي نلك استدنوا الدافية لجوتان واحد الله اسمه دافنه فيديو بهلا شير قريب دتك هلا قارسيو خير بأني رجينا إن شاء الله مكرم ولكن عبد الخالق مع عنده عيرة وبإذن الله سلامينا